waxaa booqasho laba maalmood ah maanta ay uga bilaabatay wafdi oo hogaaminaya Wasiirka Difaaca ee Turkiga mudane Hulusi Akar iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Turkiga sida ciidamada badda dhulka iyo cirka wafdigu waxaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan gaar ah la yeeshay Wasiirka Difaaca waxayna ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee taariikhiga ah ee qotada dheer ee walaaltinimo ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya iyo sidii dawladda Turkiga u sii dardargelin lahayd oo xoojin lahayd taageerada ay siisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarada ay u fudiso waxa kale oo jira kaliya ma ahayn booqashada wafdigan mid ku saabsan arrimaha amniga ciidamada oo kaliya waa sidoo kale sidii sare loogu sii qaadi lahaa meel wanaagsan loo sii gaarsiin lahaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal sidaan ognahay Turkiga waa dalka ku soo jeediyay indhaha caalamka dalka Soomaaliya iyadoona saaxiibo badan adduunyada ku haysan iyadoona garab fara badan aan haysan waxaana rabnaa dareenka walaaltinimo iyo dareenkaas qalbi wanaagga iyo dhiig wadaagga iyo dhaqan wanaagga ku salaysan oo ah mid qarniyo soo jiray in la sii dardargeliyo lana sii xoojiyo wafdiga waxaa qaabilay sidoo kale madaxtooyada ku qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha ugu sarreysay ciidamadeena waxaan rajaynaynaa insha Allah in wada hadalladooda ilaa berri ay sii socon doonaan ayna ka wada hadli doonaan qaabkii loo horumarin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac